فيديوغيني ويقلاها موضوعا maanta idin haya waxa weeye doorashooyinka Somaliland oo aan kaga waramay silsilado fara badan oo channelkayga xaqiiqo ku jira tan silsiladii doorashooyinka Somaliland waa silsilad kamid ah markaynu wax dooranayna ama marka aynu dad dooranayna maxaan ku dooran cod u siina for example marka lagu leeyahay war code waxay ka dhigan tahay in lagu yiri war dooro cidii kugu matali lahayd dawladda Somaliland codbixintu waxa weeye waa nidaam lagu doorto amba lagu soo saaro cidii hogaamin lahayd wadankan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان asxbtayga xidhan channelkayga diinka Castro waa videogeeni weeglaha mawduucan maanta idin haya waxa weeye doorashooyinka Somaliland oo aan kaga waramay silsilado fara badan oo channelkayga xaqiiqo ku jira tan silsiladii doorashooyinka Somaliland waa silsilad kamid ah wadanka Somaliland waxa ka dhacay doorashooyin madaxweyne iyo baarlamaan shantii sanaba mar doorashada oo heer qaran ah waxay codbixintu saameysay bulshooyinka ku dhaqan Somaliland oo dhan madaxweynaha waxa loo doortay inuu xilka hayo muddo 5 sano ah sidoo kale golayaasha baarlamaanka oo kala baxa golayaasha guurtida oo ka kooban 82 xubnood iyo golayaasha wakiilada oo ka kooban 82 xubnood guud ahaan ayaa la doortaa Somaliland waxa ka jira tiro xisbiyo kuwaas oo u tartamaya jagada madaxweyne iyo kuwa kuraastaba adaba doorashooyinkii soo maray jamhuuriyadda Somaliland waxa ugu dambeysay doorashadii soo martay 2017 November oo la doortay mudane Muuse Bixi Cabdi doorashadii ka horeysay waxay dhacday 26 June 2010 waxaana lagu doortay madaxweyne Silaayo doorashadii baarlamaan ee dhacday 2005 waxa lagu doortay baarlamaanka fadhiya laakiin nasiib daro doorasho dambe oo baarlamaan may dhicin doorashada mooyaane doorashadaasna waxay doorashadii ugu horeysay ee baarlamaan ee Somaliland ka dhacda sababaha ay u tiriyaan nimanka siyaasadda wax ka sheega inay doorashada baarlamaanka Somaliland ay u dhici weydo waxa kamid ah siyaasad cad oo aan doorashada laga lahayn iyo kala xadeynta xuduudaha degmooyinka oo aan wali la ansixin iyo bulshada reer Somaliland oo aan dhaqan u lahayn doorasho ee ay dhaqan u leedahay xulasho doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday wadanka waxa ku guuleystay madaxweynaha jagada haya mudane Muuse Bixi Cabdi ku-xigeenkiisu waa Cabdiraxmaan Saylici xisbiga kulmiyana way ka soo jeedaan tirooyinka u codeeyayna waxa weeye 300,500,909 qof oo ka u dhiganta boqolka xisaabta boqoleyda 55.10% waxa ku xigay xisbiga wadani taas oo Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdilaahi Ciro oo wadani ka soo jeeday uu helay 200,126 cod oo u dhiganta 40.3% shacabka xisbiga ucud oo uu ka sharaxnaa Faysal Cali Waraabe waxa uu helay 23,141 oo cod oo u dhiganta 4% amba 4 boqolkiiba codbixintu waxa weeye waa nidaam lagu doorto amba lagu soo saaro cidii hogaamin lahayd wadankan hadaba Somaliland yaa codeyn kara waxa Somaliland codeyn kara cidii Somaliland muwaadin u ah isla markaana ayaanta doorashada ka weyn 16 sano isla markaana aqligiisu uu sax yahay isla markaana kamid ah qabiilada daga Somaliland intaasi waa conditions amba shuruudaha ku xidhan in la doorto in sidii wax loo daarinay cidii wax dooranisay all right inta waxaan ku darsanayaa hadaba
doorasho marka la leeyahay amba adigu codee laba mid baa ku taala inaad codayso oo aad u codayso qof wadankaaga meel xun dhigaya oo hagardaama u yeelaya walow day ilmaadeerkaaba ahaadee amba inaad doorato qof wadankaaga wax u taraya walow ha ahaado qof kaaba shisheeyabe saamaynta markuu xafiiska fadhiistana adigoo halkaa jooga saamayntiisu ku soo gaadho haddaba haddaynu nahay bulshada reer Somaliland markaynu wax dooranayna amba marka aynu dad dooranayna maxaynu ku dooranay maxaynu cod u siinaa for example marka lagu leeyahay war codee waxay ka dhigan tahay in lagu yiri war dooro ciddii kugu matali lahayd dowladda Somaliland amba dowlad kasto aad joogta codayntu maaha interest-kaygaan ka eeganayo oo wixii maslaxad igu jirun baan eeganayaa maaha laakiin codayntu waxa weeye inaan isla markaa aan doorta cid ku habboon xafiiska anigoo u turaya dantayda iyo danta wadankayga isla markaana dantayda ka horreysiinaya danta wadankayga waayo wadankaygu hadduu wax noqdana anaa wax noqday hadduu dhaawacmana anaa dhaawacmay Somaliland waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa in doorashadii golayaasha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ay guurtidu ansixiyeen isla markaana ay dhicisa 31 May amba 31 May 2021 waxyaabooyinka aan ku faana anigoo Somaliland waxa ka mid ah in 1991 ilaa imika 5 madaxweyne isbedelay dowladda Afrikaana oo 5 madaxweyne isbedelay aad bay u waqtigan ma jirto waxaan ku amaanaya dowladda jamhuuriyadda oo aan ku faanaya inaan Somaliland ahay dimuqraadiyadda ka hana qaaday baalki Somaliland isla markaana lagu leeyahay ikhtiyaariyan adiga ikhtiyaarkaaga wax u dooro fariinta halkan ka faraya waxa weeye markaad wadankaaga wax u doorisa waxaad u doortaa amba magaaladaadaba markaad u doorisa cid matasha amba cid ka talisa waxaad u doortaa cid anficisa qabiilku anfici maayo qaraabakiilku anfici maayo laakiin waxa ku anfacaya waxa weeye cid u habboon xilka oo xilka qabata isla markaana noloshaada iyo nolosha muwaadiniinta kale wax weyn ka bedela anigu Khadar Nuur Ismaaciil baan ahay anigaana gudbinaya fariinta caynkana